qaar ka mid ah xildhibaanada dalka Soomaaliya oo baryahanba socdaal ku maraya qaaradda Yurub ayaa waxay kulan la qaateen xalay jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Hollandkaasi oo ka dhacay caasimadda wadankan ee Amsterdam. kulankan ay soo qaban qaabisay hay'adda hirada ay fadhigeedu yahay wadankan kana howlgasha gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxa ujeedadiisu ahayd sidii xildhibaanada baarlamaanka dalka Soomaaliya iyo jaaliyadda u kala warqaadan lahaayeen isla markaana waxay isaga weydiin lahaayeen xaaladda dalka Soomaaliya iyo doorka qurbo joogta ay ka qaadan karaan dib u soo noqoshada dalka Soomaaliya. xildhibaanada kale ah xildhibaan Bishaar ugaas xildhibaan Muuse Sheekh Cumar iyo xildhibaanada Qaali Axmed Diiriye ayaa waxay uga sheekeeyeen jaaliyadda wadankan Soomaaliya sida dalka Soomaaliya imika isbedel la muuqda uga socdaan isla markaana baahi weyn loogu qabo in la sii kordhiyo kaalinta qurbo joogta ay ku leeyihiin dalka Soomaaliya. jaaliyadda ugu horeyso oo aan isragno ayaa tihiin wadankii dhinac haddaad ka fiirisid horumar la taaban karo ayaa muuqato maanta sida aad arkaysaan shirkad wadankii loo dhiibay airportkeeda inay horumar ku sameyso ama maamusho sidaan u dabagaleyno step by step doorka aan ka qaadanayno waad aragtaan. amnigii bishii 8 laga soo bilaabo oo sanadkan hadda ku jirno bisha November wax amni darra oo qalqala oo qaraxya oo ballaaran oo kuwi laga naxo kala ilaahay haddana naga hayay ma dhicin. waxaa kaloo iyadana noo muuqanayso in maaragtay beesha caalamka ay ku soo dhiirinaysa dalkii Soomaaliya safaaradihii ay imaanayaan reer Yurub iyo Canada iyo dhammaan maxaan ku raada Carabiga iyo runtii madaxweynayaashii iyo ra'iisul wasaarayaashii caalamka ay ku soo dhiirinayaan inay xamar soo booqdaan maaragtay diblomaasiyadda iyo diplomatiski ay si joogto ah u imaanayaan. boqolkiiba 30 gabdhaha dastuurka ugu qorna heshiis u ah la gaaray laakiin boqolkiiba 30 dastuurka hadda yaala Soomaaliya kuma qorna. heshiis la gaaro waxa in la sameeyo laakiin way noqon weysay oo hadda ma dhicin. laakiin gabdhaha soo hadda waxay baarlamaanka jooga waxay u ololeynayaan in lagu daro dastuurka inay noqoto boqolkiiba 30 inay gabdhaha Soomaaliyeed helaan. mar kale aad iyo aad ayaan idinka mahad celinaynaa runtii warbixintaadna siiseen ee ku saabsan wadankeennii waa waxaan aad iyo aad u jecelnahay inaan maqalno waana soo dhaweynaynaa waxaana jeclaalahay runtii in warbixinadaas aan marar badan helno sababtoo ah runtii xildhibaanadu waa dadka Soomaalida ah matalayay aan farxadeena mid la soo koobi kara ma aha sababta ay tahay waxaan nacaawdi dawladnimo ayaan dareemaynaa hase ahaatee Soomaali dhibaato badan ay soo martay rubac qarni in ku dhow ayaan dhibaataysanahay haddaan wax dhaliilno dhaliishu waa toosin waana rajayaa inaad fahamkaas aad leedihiin aad iyo aad u maasantihiin waxaan rajaynayaa waan talo ayada laftirkeeda inaa macnaha ay baarlamaanka sidaan oo kale inta soo baxaan ee dadka diaspora la hadlaan waa in macnaha la isku yimaado waa in la iswadaarsado fikradaha si macnaha idinkan waxa nooga barataan annagana waxa idinkaga barano la isku caloolfiyaado siyaasadana macnaha iyo wadanka horumarkiisana looga wada shaqeeyo marka aad iyo aad u maasantihiin waxa waaye ururkan amaanta in marti qaaday oo meesha marti qaad ka furiyeen ururka hirda waaye oo mar walba u taagan arrimaha Soomaaliya macnaha aniga Cabdishakuur matalayna Cabdishakuur waxa weeyaan arrin kale degdeg ah ku imaato uu tagay laakiin macnaha anaga waxaan jecelnahay maanta Soomaaliya oo bilbilays inaan aragno Soomaaliya oo qof walba siman yahay iyadoo macnaha nabad ah iyadoo cunug kasta uu san gaajo ku seexan oo cunug walbana waxbarasho uu helo gabar walbana ay hesho aydan waxbarasho nabad iyo walaaltinimo Soomaalinimo lagu wada nool yahay ayaan jecelnahay oo taas anaga waxay noo tahay fishing anaga ama aragtideena dheer oo aan raadinayno aad iyo aad u maasantihiin marka waxaan inaga codsanaynaa 4 sano inaad noo deysaan dawladdeedaas talada aan siinayo waa in aad ku dayatiin dawladaha adduunka maadaama aad kulligiin diaspora diin laftirkiina. markii uu soo dhamaaday kulankan xildhibaanadu ay la qaateen jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Holland ayaa waxay durbadiiba xildhibaanada loo galbiyay oo dib ugu noqdeen wadanka Belgium oo ay sii joogi doonaan muddo 7 toddobaad si ay uga qayb qaataan kulan aqoon kororsi ah oo halkaasi uga furmaya. Cabdiweli Ibrahim Garyare, Universal TV, Amsterdam, Holland.